أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تغربون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب الآبان آيات قنطن يا أفراد oo suuratu Yuusuf kamida qisadii cajiibka ahayd ayaanu ku dhex jirnay nabiyullaahi Yuusuf markii waxa weeye xaalkiisii oo cadeeyay oo bari ahaanshadii oo dalbay ula jeedada oo dalbaana uu cadeeyay naftiisina Ilaahay u tawaalucay oo uu dhahay inna nafsa la amaaratun bisuu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafuur rahiim. arintaas markay dhacday waxa weeye waa la doonay markaas waxa weeye xabsigii laga doonay boqorkii markaas waxa uu dhahay hadalada tan. waqala al-maliku boqorkii waxa uu dhahay Ilaahay iituni ila kaalaya bihi Yuusuf ila kaalaya astakhlisu an ukhallise oo nu gooni yeelay li nafsi naftayda. markii saas uu dhahay waa loo tagay markaas waxa la boqorka ku wacay ajiib. hada saan horu soo marna casharkeena horaan aayadan xooga uga qaadanay waa istaaga markaas uu dadka xabsiga ku jiro sagootiyay waa u duceeyay waa qubaystay dhar fiican ayuu qaatay maxaa yeelay waxa la suneeyaa markii meelaha xafladaha iyo meelaha dadka saas loo tagaayo in markaas si ziina fiican la qaato ayaa loo baahan yahay iyo markii Ilaahay hortiisa munaajaadka Ilaahay lagu jiro sida salaada iyo waxyaabo kale inta marka meesha waxa ku jirta waa u galay boqorkii marka u galay waxa la sheegay markii uu u galay wuxuu ku salaamaa leeyay luqada oo maartay Carabiga ku salaamalay marka uu galay wuxuu ku salaamalay Carabiga ku salaamalay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dadkaasna dad Carab ma aysan ahayn markaas uu boqorku waxa uu dhahay maxay tahay luqadaanu maxay tahay u dhahay markaas uu dhahay luqadaanu lisaanu ammi Ismaaciil uu dhahay adeerkay Ismaaciil laakiin markaas waxa way adeer maadaama Isxaaq oo garab socdo ayuu ka wadahay markaas awowgiis waaye luqadiisi waa u dhahay maxay yeelay nabiyullaahi Ismaaciil markii hadda xaramka la keenay qisa dheer waa ku tagi doonaahe oo halkaas maartay nabi Ibraahim oo keenay waa tii qoladii Carabta ahayd oo meesha joogtay oo qoladii Bani Jurhum ay kamid ahaayeen waa kii luqada Carabiga ka bartay maahe ayagu markaasi aalu Ibraahim intooda kaleentood waxa weeye Carab ma aysan Carabina kuma aysan hadli jirin marka haddana markaasi oo wacay haddana luqadii kale Ibraaniyada ay ku hadli jireen maartay ayagu ay ku hadli jireen markaas oo haddana tahay luqadatan maxay tahay u dhahdana markaas oo dhahay luqadaanu aabaadeydi lisaankoodi luqadoodi waay boqorkan wuxuu ku hadli jiraa leeyri 70 luqo ku yaqiinaa laakiin labadan luqo oo midaan Ibraaniyada iyo Carabiyada ma uusan aqoonin markuu boqorku luqo oo ku hadlo nabi Yuusuf luqadaas waa ka jawaaba luqa kasoo ku hadlaba waa ka jawaaba waa iska yaqaan Ilaahay yaa baray markaas boqorku waa yaabay amarkiisa la yaabay nin asagoo da'yar oo intaana 70 luqo uu yaqiino wax ka sii badan uu yaqaan wax oo bisaga hadlaayo boqorkii la yaabay ku noqotay maxay yeelay markaas nabi Suleymaan nabi Yuusuf sida la sheegay 30 jir oo ah ama 33 jir oo ah yaali saas ayuu ahay baali 13 waxa weeye waa muddadii markaasi waxa weeye naagti boq casiiski iyo Suleykha uu la nigay xabsigana markaasi waxa waaye xabsigana oo ku jiray 17 sanane markii Masar la soo gelinayay ayuu jiray walow hadda markaas xagga taariikhda iyo da'daas
khilaaf xagga badan oo xagga asarta ay jirto marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala falama goortii kallamahu la waramay oo waxa weeye nabi yuusuf waa baxay boqorkii u galay falama goortii kallamahu la waramay oo boqorkii la waramay qaala boqorkii waxa u dhahay innaka adigu yuusufow اليوم ما أنت لدينا أنك أكتينا مكين أي ذو مكانة درجة مد صاحب آياتها أمين أولى آمني أيولا بورك واسود معايلة دنتيسيا ماشا كجرته فلما قرتي كلمه أولوه رموده إلهي قال وحوده بغرك نبي يوسف إنك أذوق يوسف اليوم ما أنت لدينا أكتينا مكين وحوي أي ذو مكانة وي قريب المنزلة وي nin manziladiisu noo dhowdaha tahay oo markaasi darajadiisu ay sareyso sirtaynana lagu aaminayo ayaa taa ka wada amiinun oo la aaminay sidaas ayaa tahay u dhahay horta marka taas ogaabuu dhahay markaas sidaas markuu dhahay waxa uu dhahay waa la tashaa boqorkii maxaad malayhaysaa ra'yigaaga bal iiga warramuu dhahay maxaan sameeynaa waqtiga mustaqbalka oo soo socda ilaa hadda rooyadii asaga cabirayo sanooyinkii barwaaqada ay hadda la gelaya 7 sano oo barwaaqa iyo 7 sano oo kale abaar iyo sanad kaleentood 15 sano hadda soo socota wixii dhacaayay ayuu markaas u ka hadlaaya markaas nabi yuusuf waxa uu dhahay dacaamka aruuriyo dhahay oo waxa la tabcaayo hal aruusho isla markaasna zarac fara badan beer ayuu dhahay oo badar badan hal abuuro hal beero sanooyinkan barwaaqada laga faa'iideyso dhahay dacaamkana sabuulkiisa ku kayda ayuu dhahay marka waxa ku imaan doona dhahay arlada tan kaleentood sida maartay Sham iyo dhulkaas iyo Yaman iyo dhulkaas waxa ka dhici doona abaarta meel walba ay camimi doontaa fayati ilayka alkhalqu liyamtaru minka dadka marka ku imaasay kaaga shaharsadaan badar ay kaaga beegtaan oo meeshaana waxa loo soo aadi doona in wax markaas laga iibsado waxa yeelay faa'iidada waxa la helaa marka shayga la waayo ayaa la helaa oo laga faa'iideystaa marka hadda boqorku waxa ku soo dhacday hawshaas oo xagga dhaqaalaha ah cid markaas hadda uu dhiibi karo dadkiisa kuma jirto markaas oo yuusuf waxa ku dhahay arintan marka yaa ii sameeynaayo oo yaa khasnaji ii noqonayo ama maartay ii noqonayo nin xagga dhaqaalaha ah oo dhaqaalahaas yaa ii sameeynaayo oo maaliyadaas markaasi yaa wasiir iigu noqonayo dhahay oo hawshaas ii qabanayo marka uu sidaas dhahay قال وحوري إلهي نبي الله يوسف اجعلني أنيق إيالا ودهي على خزائن الأرض أرلد خسنا دياشيدا دول كان مصر وحماليد يال أنيق إيديبا ودهي إني أنو حفيظ مد حفظ بدن أيان هاي عليم أوكو علم له ذو حفظ وعلم هاي أنو حوي حفظنا وحفظيا وحا علمنا وأوليها رندا سقون تيدان له ama waxa laga wadaa waxa ku wada kaatibna waa aho nin wax qoraan ah oo hadana xaasib ah wax xisaaba sidaas ayaa maartay uu ka wada haleeyay culimada waxay hadii su'aal laga keeno la yiraahdo hada waxa weeye nabiyullah yuusuf waxa uu dalbay taqaddum inuu horumar sameeyo adduunyada iyo imaaro madaxtinimo arintaasna waxay dadka akhyaarta laayiqum ahaan dadka akhyaarta ah waxyaabaha sidaas markaas ma raadshaan waxa la leeyahay arintan waxay ku timiday arintan waxa weeye leeyahay markaan qofka loo cayinin markii lagu cayino oo waxaas qaba la yiraahdo ayaa la iska dhaafaa leeyahay ama se waxa waa leeyahay hadaysan qofkan waajib aysan ku noqonin shaqada marka hadii cid kale oo dadka muslimiinta islaamka wax markaasi hawshiisa qof u qunta hadii la waayo hawshina ay muhiim tahay qofkan inuu asaga kaligiisna oo hawshi yaqaano inuu hawshaas ka shaqeeyo waajib ay ku naqaysaanay marka nabi yuusuf waxa uu arkay hawshan markaasi cid kale oo taqaan inaysan jirin asaga markaas ay ku ceynowday saasoo markaas uu weydiisaalay ama waxa la yiri su'aal waxa kale la sheegaa maya waxyi bayba ahaadba waxyi oo ilaahay xaqiisa looga waxyooday ahaad inuu yiraahdo arinta aniga halay dhiibo marka saas inuu dhaho ayaa markaas meesha teelay marka ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala qaala wuxuu yiri nabiyullah yuusuf waliba hadda waxay culimada ahlu siirada sheegan hadalkan marka uu dhahayo iyo marka hawsha loo dhiibayo hal sana u dhaxaysa leeyo asaga laftirkiisa horay hawsha loogaga ma dhiibin laakiin waxa uu yahay buu isu sheegay qaal wuxuu yiri ilaahay nabiyullah yuusuf ij'alni iyal ala khaza'in al-ard
arlada khasnadayaasheeda arlada hadda arloo dhan maahan macnaa nimankaasu masar ay haysteen masar arlu masar ay ahayd inni anigu xafiidun mid xifdin badan ayaan ahay caliimun oo cilmi badane hadda ninkii sidaas la yeelayo inta soo maraayay ayaa hadda markaan darajadan u sii dalacaay inni xafiidun caliimun taasadi la salam la yiraahdo nafta oo la taskiyeeyo waa tii la iska reebay oo ilaahay waa tooday falaa tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa naftiinha amaanina waxa lagu jawaabayaa marka nafta in la amaano la iska reebayo waa markii faan iyo kibir loola jeedaa khalqi ilaahay loo faano waa in arinta la kala saaro waa way markii qofku naftiisa inuu taskiyeeyo loo diidan yahay waa markuu markiisa taskiyinayo faan iyo kibir ay ka tahay khalqi ilaahay u faanayo laakiin hadduu ula qasdaayo nacfiga uu leeyahay inuu dadka gaarsiyo dadka wax u sheego waaqicagana oo ka jira oo ka hadlo ilaahayna oo ku shukrinayo wax dhibaato ma la taasida waxay kamid tahay min baab tahaddus bin ni'amaali nicmooyinka ilaahay laga sheekeeyo taasna sharciga la isku faray waa ta ku tagi doona hadii ilaahay yiraahdo wa amma bi ni'mati rabbika fahadith oo ilaahay rabbigaaga nicmadiisa ka sheekay marka arinta saasa loo kala saaraya ilaahay wuxuu yiri wakadalika sidaas oo kale ka in'aamina alayhi way sidaan ugu nicmayna nabiyullaahi yuusuf khalaas laga soo saar xabsiga wakadalika sidaas oo kale ilaahay مكنا وان مكانيني ليوسف يوسف إلهي في الأرض أرض مصر أيان مكانيني تمكين كانوا وحوية إن مالك السيد إلهي نوشيغايو دولك بقى سووا قعنتا كل جاي مالوا البقوا مرايو أحرد بقى سووا مضحكية بغد الليق والحبس عريري مركو كجرا حبس كجرا ولكن بعد سفره على الليق ومركو عريري وكو سفروي مركي حبس قالوا ردي مركي وحوية مارتي عيلك لغو ردي waxa soo dhawaatan soo mareynay sida bana jirto la jarribay ambiyada ilaahay iyo dadka saalixiinta waxa weeye markii la mariyo jarribaada ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala futuuhaadku markaas yimaadaan laakiin waxa shardiya arintaas in lagu safro ayaa loo baahan yahay darajadu meeshaasayba ka imaahaysaaba jarribaada bacdiyada imaahaysaa makana waan makaninow dha ilaahay li yuusuf fil arli masr yatabawwa hal uu degaayo منها أرلده وكدجايو حيث يشاء مش ودونايو يتبوأ أو إلهي حال ويسكدجايو ينزل وي بركي ميلو البؤ كحير ناجري منها أرلده حيث يشاء مش ودونه بعد الليق والحبس وي بركي هذا وحا ماشى قصة لقى قاعدنا يا بقر كلفتر كيسو تاج إنه أجليه أو مركز خاتم كيسو أوسيه oo markaasi booski maartay ninkii casiiska ahay ayaa la casilay markaas asaa lagu bedelay markaas ka bacdi ayuu markaa casiiskana dhintay sida hadda ahlu siiradu ay sheegeen markaas nabiyullaahi yuusuf naagtiisi oo Zulaykha ahaydoo saas u jeclaaday naagta ayuu guursadaa la sheegay laakiin waxa uu ka helay ayadoo markaasi bikaara oo la dhalin yareeyay ayuu helay markaas waxay u dhashay laba wiil ayay u dhashay adli ayuuna markaas waxa weeye masar ku xukumay cid kasta ayaa markaas u hogaansatay qisa oo dheer oo markaas siiradu iyo maartay kutubta waaweyn ay dhigaan ayaa jira sida maartay al-bidaaya wa nihaaya oo al-mukathir uu leeyahay kutubtaas si fiican maartay wax badan looga sii daalac karaya iyo hadaladii markaas waxa weeye haweentaas ay tiri waxa la sheegay markan uu guursanayo waa mar maalkeedii baabay indhihi waa indhabeesha leeyri waxayna ku indhabeeshaadi ooyinta nabi yuusuf ay ooyisa leeyri oo wixii xubbiga ka galay maba uusan dayn qandhow ku noqday markaasay dadka tuugsa jirtay jidadkay ka tuugsa jirtay nabi yuusufna markaasi asbuuc walba markaasi waxa soo mari jiray meesha asagoo wax walba ciidamadiisa iyo wax walba oo gaadiid saaran 100,000 oo maartay cudamaa qoomihi ah ay la wada socdaan markaasaan haweentii waxa lagu dhahay war hadaad maartay bal xoogaa istusi laheeday waxa laga yaabaa markaasi inuu wax wal u maartay aad ka heshay markaasay maali waxay u istaagtaa leeydi jidka ayadoo qaylinaysa oo markaasi subhana man ja'ala al-muluka abidan bima'siyatihim dhahaysa waxa nasahan allahi boqoradi ka yeela adooman ka yeelay sababtuna ay tahay macsida ay sameeyeen dadku haday darajo iyo maqaam iyo ay lahaa jireen laakiin macaasidoodu badato ilaahay daliiliino ka dhigaya markaas waxa la soo kicinaya dadkii markaasi la gumaysan jiray dadkii sidaas ahay
ayaa markaasa maqaamka la keenaa maxaa yeelay macaasidu dadka way duleynaysaa markaasay waxay dhahaysaa leeyri subhana man ja'ala al-muluka abidan ilaahi waxa nasahan boqoradi ka yeela adooman ka dhigay bimacsiyatihim بسبب معصيته معصيده sababkeeda waja'ala al-abida mulukan adoomankina ka dhigay boqor ka dhigay bidaa'atihim ilaahi adeecida ay adeeceen ilaa qofku haduu ilaahi adeeco saada an qoomihi way qoonkiisa markaas waa ka sara maraya markaasuu nabi yuusuf waxa uu dhahay way la qaylinaysaa war waa maxay waxa meeshan ka qaylinaya ayuu dhahay markaas loo keena markaasuu aqoonsada markaas qalbigiisa u jilcay markaasuu wax badan u ooyay asaguna markaasuu wuxuu u yeeray zawaaj markaasa waxa weeye waa la diyaariyaa leeyri aroosa la geeyay aroos waa loo geliyay sida hadda maaratay ahlusillaah ka xadiis iyo ayad qura midna ma laakiin siirada taariikhda saasad ku yiraahdeen markaasi nabi yuusuf ay istaagaa leeyri isagoo dukanay ilaahayna baryaaya ayaduna gadaashiisa istaagtay markaasuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiisay ilaa hadda duq habar sheeybay noqotay in dhalinyaradeedii loo soo celiyo quruxdeedii iyo indhaheedii sidii ilaahay ka dhigay ilaa rasuul ilaahay waa wuxuu ilaahay ka baryay waa ilaahay ilaa markaas ay noqoto maalintii ay dalbaysa inay ka sii qurxanaataba waxa ilaa asaga lagu karaameynaaye waa lima afa an maharimilaahi markuu xaaraanti ilaahay markuu ka dhowrsaday ayaa asagana intaas ugu karaameeyay markaasuu idoo cadraahu helay markaasi nolol fiican ay ku noolaadeen laakiin hadda waxa weeye waxa la wariyay markaasi qalbiga yuusuf laftigiisa in maxabadeeda la geliyay maaratay sidii oo markii hore hada lama gelin laakiin waqtiga kan oo markaasi uu guursanayo sida markaasi ay maaratay qaar ay sheegayaan adu calaayati xaal waxa weeye arintaas hada waxa weeye wixii wanaag nabiyullaahi yuusuf dhibaatada iyo mataacibta iyo wixii uu ku sabray ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay hawshiisa khaatumadiisa sidaas uu ka dhigay dadka sidaas ay inuu ka sara maro asaga hoosiisa yimaadaan hada arintan nabi yuusuf gooni kuma aan sida hada ilaahi noo sheegi doono maxaa ilaahi wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala yatabawwa'u hal uu degaayo minha ardu masar hayshu yashaa'u meeshi oo doono uu ka degaayo markaasuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala nusiibu waanu ku asiibayna birahmatina naxariisayna man nashaa'u ruuha aan doonayno wa taas ilaahi naxariisiisi waaye markaasuu dhahay alla nusiibu waanu ku asiibayna birahmatina naxariisayna man nashaa'u ruuha aan doonayno wala nudiicu man la ya'ayna dhahay alle ajral muhsiniina kuwa wanaaga falay ajirkooda la yacmayno macnaha nakhusu binicmatina man aradna way naxariisayna waxa weeye nicmadayna qofkan doono ayaanu ku khaas yeelina dadka muhsiniinta ajirkoodana ma la ya'ayno bal amuurta waa u laalaabayna adduunyo aakhiraba way maxaa yeelay maqaamaadkaas ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyullaahi yuusuf oo inta soo dhibaataa la marsiiyay sida hadana noo soo socota wax badan baa noo soo socdo kale iyaguna cajiibe markaasuu dhahay ilaahay markii taas adduunyaday ahaaday wala ajrul aakhirati aakhirada ajirkeeda ayaa khayr badan oo ilaahay oo hadda waxa adduunyada qofka lagu siinaayo waxa uga sii khayr badan oo uga sii weynaa doona aakhirada wala ajrul aakhirati aakhirada ajirkeeda ayaa khayr badan ajirka adduunyo lilladina yaakay khayr badan tahay lilladina kuwa aamanu rumeeyo dhahay alle wa kaanu ahadan yattaquuna kuwa alla ka cabsada meesha waxa rahay iimaan iyo taqwa in la helo lilladina kuwa aamanu rumeeyay wa kaanu ahadan yattaquuna kuwa alla ka cabsada markay halkaas joogto nabiyullaahi yuusufna markaasi masar asagi boqor uu ku noqday hatta aziiska markii la asilay marka uu loo dhiibay ahayd markii dambe hatta ninkii boqorka ahay ayaa asagu markaas amba waa ka dhintaa leeyri jagadii uu qabtay nabiyullaahi yuusuf amba say ninkii weys asilay markaas uu boqortooyadii wuxuu u dhiibay nabi yuusuf u dhiibay markaas meeshaas waxa ka soo baxday nabiyullaahi yuusuf nabina inuu yahay oo rasuul ah isla markaas boqorna uu meeshaasna uu madax ka yahay markay saas joogto waxa dhacaa leeyri todobadii sano oo barwaaqada heedaa laga soo gudbay waxa hadana laga gudbay todobadii abaarta aheeday 14 sano ayaa markaas la maraya 14 sano laakiin waxa weeye markii 7 sano laga soo dhaafay waxa lagu dhex jiraa todobadii dambo ayaa la soo dhex galay todobadii damba la dhex galay oo waxa soo galay sanooyinka abaarta ahay dhulka marka nabi yuusuf uu ka yimidayo bihisna uu jiro
nabiyullaahi ibraahim iyo ay joogaan oo markaas arlul khaliil yiraahdo dhulkan falastiin waxa la dhihi jiray arlu kancaana la dhihi jiray niman kancaaniyiin la yiraahdo ayaa deganaa jirday oo awlaadi camliiq ibn aad kamid ah ayaa dhulkaas joogi jiray oo jabaabiradii waatan ku soo mari jirnay suuratu maa'ida aynu ku soo mari jirnay shaam iyo caradaas oo dhan marka abaara ka dhacay abaartii markay dhacday waxa masar u soo safraaya marka walaalihiisi nimanka ahaayo ceelku ku riday oo ayaga la taa ninkaas waa hore u halaagsamay iyo aabahood yacquubo soo isaga ooyay indhihi markaasi indhihiba gab ka dhaxeen maartay wiilkiisa uu ooyay arinta marka hadda waxa imaad doona arintaas siday ku timid iyo sida ay reer banu Israa'iil ay Masar ku soo galeen ayaa imaad doonta iyo dadkii badawda ahayo halkaas joogay siday ku soo gali doonaan markii abaaruhu ay ku dhaceen dhulkan u soo safreen iyo sida nabiyullaahi yuusuf oo meeshaas boqorka iyagu saysan garaneyn ilaahi arintiba ilaahi keenaya la tunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'uruna wa tawday markii ru'yada uu sheegay arintan waad u sheegi doontaa ma ru'yada markuu sheegay markii ceelka lagu rido waay oo ilaahi uu waxyooday waad u sheegi doontaa haleeyri arinkan ayagoon ku garaneyn hada ayaga waxay la tahay ninkaas mar hore u dhamaatay isleeyay marka Allah wuxuu dhahay wajaa waxa yimiday ikhwatu yuusufa nabi yuusuf walaalihiisa yimiday laakiin waxaan ku jirin Benyamin kuma jiro Benyamin oo markaas isku bah ahaayeen maartay nabiyullaahi yuusuf oo ilmihii markaas ugu yaraay kuma jiro waxayna imaan liyamtaaru inay shaharsadaan oo markaas badar ay beegtaan maxay ilaa waxa soo gaaray asiiska oo reer Masar inuu dacaamka dadka samankiisa ku siinayo oo wax ku qaariyay asiiskan hadda waxa weeyo waa nabiyullaahi yuusuf laakiin ayagu ma garanaynin oo meesha iska joogay u haysaano Masar iska xukumo saas markaasay waxay yiraahdeen carradaas aan u safarno ilaa waxa weeye awlaad iyo adduunyay leeyihiin marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wajaa waxa yimid ikhwatu yuusuf walaalihiisa yimid fadakhalu dibadna way u soo galeen عليه يوسف أي أصوغ قالين فعرفهم دبيدنا وأقون صدق أصو وهي أصوغ قالين أيقو هير بادية أو مركز أور إيا وحوته أو سداس هي صوغ قالين مركز بلدك وأقون صدق مركز إن أنهم إخوته لكن أيقو مفهم آيان فهم كودنا وإمادنا لكن ما دوا فعرفهم وأقون صدق إلهي والحال هم أيقون له إساق منكرون إيسان قرنين والحال هم أيقون له إساق من كورونا أي إنكرا ينقرني ولبعد عهدهم به وي زمن كيا فقاي يسود بيسي وظنهم هلاكوا أدنا وحي لأنه هلاك سمي أو ماشى صورة مات مركز طبعا أي أهايين مسكن كودنا ميل إلى عربات أيوة هاي أو أرض فلسطين كترسن وميل مركز صغور الشام ليرادو غير بادية أهايين جيلي دقجرين إيه أري دقجرين حكمة هذا طبعا كان أصاب بحين وحال سوق رسان روسو مرني نين كان مركزي بقر كان هير مصر إنه مركزي وحوي لا يزيد واحد من كمركزي عن حمل البعير إنه مركزي وحوي هل قفدو كدي من يهي أو ترادو لمن تهي إنه وصل مركز وحبقوا زيادين لكن هذه ترى يصير ثمانو كالنتود يحاول حالي طبعا هذا وحكي يبسدان هل بعير كالنتود أو كلو بوح أيوصيها لي markaasay waxay isiraadeen markaasii tobankiinan taga ay isiraadeen marka ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala waa u yimaadeen markaasay waxay kula hadleen luqadii ibraaniyada ku hadli jireen markaasoo wax inkiraaya amal oo ku radaa waxa uu dhahay ma aqdamakum biladi maxaa wadankayga idin soo geliyo u dhahay nimanka luqadan ku hadlaa maxaa tiino dhahay markaasay lil miirati dhahay shaharsi aan u nimiday la'allakum uyuuna u dhahay waxa laga yaabaa jawaasiistiin markaasay waxay yiraahdeen macaadallah ilaahan ka meen galnay markaasoo xageed ka timaadeen oo dhahay waan iska ogyahay bilaadu kancaan kan miday yiraahdeen aabaheena yacquub waa nabi ilaahay markaasuu dhahay oo aabihiin markaasi awlaadan idinka ahayn ma qabiya oo dhahay hay yiraahdeen markaasi 12 ahaynay ninkii noogu yaray ayaa dhulkaas baadiyaha ku dhumay markaasuu halkaas ku halaagsamay waa ninkay sheegayeen waaba asagiba marka ninka aaba noo jecel yahay ayuuna ahay waxa saharay yiraahdeen nin shaqiiqiisa ah oo ku baha aabana markaas gacantu ku dhigay kaas si marka meeshii anugu kala uga fiirsado markay saas warbixiyeen nimankan meel hal geeyo dhahay alla karaameeyo
dawladiisii u dhahay nimanka meel halagii alla karaamay waxa la siiyo alla marti qaado u dhahay ilaa waxa way ku daysamaaye mar hadii adiga Ilaahay darajo ku gaarsiyo dadka lagu ma daysado markay la fariisiyeen nimankii wixii ay markaasi ay wateen oo dhan ayaa markaasa waxa way wax lagu siinaya Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala walamma goorti jahazahum aw diyaariyay bijahazihim diyaarintoodi marka hadda walamma jahazahum taan ayaan insha Allah ta'ala 10keena kala ka bilaabi doonaa maadaama arrin badan oo xasaasiya meeshan ay ku jirto suurada tan insha Allah ta'ala waxaanu ka dhigi doonaa 10 gaaban oo wax badan oo markaasi muhiimada ay ku jiraan marka halkaas ayaa 10keena noo joogaya wala subhanahu wa ta'ala